wardegdeg ah shirkii ka socday magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaadhka maamulka Jubbaland oo laga soo saaray go'aano culus. Shirkan oo maalintiisii labaad galay ayaa lagu doortay gudoomiye, ku-xigeen, xoghaye iyo weliba 6 xubnood oo korjoogta noqonaya. xubnahan la doortay iyo weliba kuwa korjoogtada ee golaha mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay ee halkaasi ku shirayay ay soo saareen ayaa ka kooban 2 beelood oo kaliya. waxaa goobtaas 6 xubnood ee korjoogtada iyo 3 xubnood ee maamulka gudoomiyaha, ku-xigeenka iyo xoghayahaba ay ka kooban yihiin ama ay ka soo jeedaan 2 beelood oo kaliya, iyadoo shirkan ajandihiisu u ahaa ama loogu magac daray shirka mustaqbalka Soomaaliya lagu badbaadinayo. waa sida ajandaha shirkaasi u ahaa ee siyaasiyiintu ay ku midaysnaayeen. goobtan kuma shiraynin 2daasi beelood oo kaliya ee waxaa ku shirayay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee mucaaradka, xildhibaano, senataro, siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda beelaha kale ee Soomaaliyeed ee hawiye iyo daarood aan ahayn ayaa goobta xaadir ku ahaa. balse hanaanka wax loo qaybiyay waxa uu noqday mid hadalhayn weyn ka abuuray baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay. haddaba sidee ayay wax u dhaceen? maxaa lagu saleeyay? habka ay siyaasiyiintaasi wax u qaybsadeen muxuu salka ku hayaa? saamayn intee leeg ayuuse ku yeelan karaa madaxweyne xasan iyo sidoo kaleeto xisbiga JSB ee markaasi horkacaya hanaanka doorashooyinka ee lagu tilmaamay inuu yahay mid iyaga gaar u ah? culays intee leeg ayay soo kordhin karaan? dadka la doortayse waa kuwee? go'aanadan soo baxayse sidee ayay noqon doonaan? dadka Soomaaliyeed sidee ayay u arkaan? bal waan qaadan dhigaynaa, dhinacyo badan baan ka istaagaynaa. gudoomiyaha ninka loo doortay, ku-xigeenka, xoghayaha, beelbeel magacyadooda ayaan dul istaagayaa. hadduu alla idmo soo dhawaada, idinkuna aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay shirka Kismaayo ka socday oo maalintii labaad galay ayaa go'aano hordhaca laga soo saaray, iyadoo shirkaasi lagu doortay amaba lagu magacaabay mas'uuliyiin dhowr ah. gudoomiyaha shirkaas waxaa loo doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. dabcan magacaabisu bay iska hay, doorasho lama dhigi karee. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa loo idmaday inuu noqdo gudoomiyaha golaha mustaqbalka Soomaaliya, halka ku-xigeenkana loo idmaday amaba loo dhiibtay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, hogaamiyaha Jubbaland ee sharciyada aan haysanin. waxaa sidoo kaleeto xogayaha laga dhigay maxamed dhabancad oo isagana ah xildhibaan ka soo jeeda ama siyaasi ka soo jeeda Puntland. dhabancad waa nin majeerteena, dabcan waa dareemi kartaan 2 dhabancad baa jira, laakiin kan waa kii majeerteen weeye. marka goobta waxaa fadhiya oo 3daasi xubnood ay kala yihiin waa Sheekh Shariif oo hawiye abgaal ah, Axmed Madoobe oo daarood ogaadeena, iyo dhabancad oo xogayaha waxa weeye golahaasa oo markaasi isagoo ah majeerteen. 3daasi xubnood xagga inoo dhig. xubnaha kale ee golaha ku metelaya ee markaasi 6 xubnood ka kooban ayaa iyagana kala ah Saciid Deni oo majeerteen ah, ra'iisul wasaare Saacid oo mareexaan ah, waa daarood labaduba ah dabcan. Rooble oo habar gadiira hawiye ah, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagana hawiye habar gadiira, agaasime Kofi oo isagana habar gadiira, iyo weliba ra'iisul wasaare Khayre oo hawiye murasada ah. 6daasi xubnood 2 ka mid ah waa daarood, halka 4 kalena hawiye ay yihiin. 9 xubnood oo maamulka uu noqonayo oo 3 ay hogaamiyaasha ugu sareeya ee gudoomiyaha, ku-xigeenka iyo xogayaha ay yihiin, oo 2 ay daarood leeyihiin, midna uu hawiye leeyahay, iyo 6 xubnood oo 4 hawiye leeyahay, 2 ay daarood leeyihiin ayaa goobta ka soo baxay. su'aalaha la isweydiin baa marka waxay tahay, war shirkan Kismaayo ka socday ma daarood iyo hawiye ayaa ku shiray? ma jirin miyaa siyaasiyiin kaleeto oo goobta joogtay? dabcan haa, way jireen. waxaa joogay xildhibaano, senataro, beesha direed iyo tigil iyo medifle ka soo jeedaa joogay oo goobta ku sugnaa. xaggee ayay aadeen? away iyaga matalaadoodii maxaa loogu diiday? maxay tahay sababta looga tallaabsaday? maxay tahay sababta xubinna loogu soo dari waayey?
maadaama shirkanse lagu magac daray inuu yahay shirka golaha mustaqbalka Soomaaliya lagu badbaadinayo oo magaciisu sida ahaa maxay isbedelay markii gogasha la fadhiistay magaca iyo maamulka soo baxay ma isleeyihiin ila magacu waa shirka amaandhehe waa golaha badbaadada mustaqbalka Soomaaliya weey xubnaha la soo doortay ama habka wax loo soo dooray hab Soomaaliya lagu badbaadin karo ma yahay horey baan idin sheego waxaan idhi dalay siyaasadeed baa goobta iskugu imaatay ummad Soomaaliyeed laguma badbaadinay muuqaalkii ka horeeyay orod soo daawo dib u laabo waxaan ku faahfaahiyay shirkan natiijada ka soo bixi doonta iyo go'aanada ka soo bixi doonaba inaysan saameyn ku yeelan doonin hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee Xasan uu wato oo waliba anigu aan aaminsanahay inuu kali u yahay una danihiisa ka dhaxarko haddana wax saameeyna oo ay ku yeelan karto ama ay ku soo kordhin karto ama ay ka nusqaamin karto ma jirta baan horaan inay waxa uu noqon doonaa fadeexad iyo ceeb go'aanada ka soo baxa soo inamani muuqaalkii hore soo kagama hadan hadda maxaa idiin muuqda ma shirkan ma waxa gole hawiye iyo ay dhisteen daarood oo kaliya oo dir ay socon oo digilay midflay ay joogin oo aysan qayb ka ahayn waliba daarood yeena dhihine ogaadeen ma jeerteen habar gidir iyo abgaal afartaasi beelood way wax kale ii sheega khayre oo saynta ugu dambayso oo lixda guddigaas qabanqaabada iyo farsamada lagu daray technicalka lagu daray oo waxa weeye shaqaale hoosaadka laga dhigay shaqaale hoosaadka ayaa murasada ka waa habar gidir abgaal ogaadeen iyo ma jeerteen saddexdaas ayaa horta meesha wax ku qaybsatay golahana waxaa loogu magac daray golaha mustaqbalka badbaadada Soomaaliyeed ma isleeyahay marka maya isma yeelan karo magaca iyo maamulka la dhisay ee golaha loogu magac daray isma yeelan karo horta waa midaas iga qabsada tan labaad tusaale yar baan ina siinayaa golahan hadda waa la dhisay oo maanta ayaa lagu dhawaaqay waxaan u qabanayaa 3 bilood gudahood golahaasoo wada socda haddaad aragtaan iyadana aqoon u malihi siyaasiyiinta meesha joogta golahaasoo kala tegay oo ina farmaajo ku biirtay ina xasan sheekh maxamuud ku biirtay ina banaanka qaqaqaqa kale haddaan arki weydaan iyadana iga taariikheeya waxaa intaa soo raaca kursiga madaxweynaha iyo saadaashiisu kursiga madaxweynaha horta madaxweynaha waxaa noqonaya ilaahay ninka uu u qoro dhihi maayo hadda soo bixi maayo sheekh shariifna dhihi maayo farmaajo soo bixina dhihi maayo xasan uu soo bixi maysidna dhihi maayo allah ninkuu u qoraa qaadanaya laakiin tallaabo qaadka markii la qiimeeyo sida wax ku socdaan sida wax ay u dhacayaan markii la qiimeeyo ma muuqdo weji golahan uu hoggaanka Soomaaliya ku qaban karo ama uu ku aanan karo waa marka xaqiiqda ka hadla way ma muuqato waxayse u muuqanin waxa horta laga hadlayo waa doorasho markii laga hadlayana qof nadiif ah oo bulshada dhexdeeda nadiif ka oo isaga hogaamintiisii hore iyo markii raadraaciisii hore dib iyo taariikhdiisa loo fiiriyo nadiifa ayaa doorasho qof iyo cod ka hadla ninka shalayto baarlamaanka intuu xabadda la dhacgalay baf kasii gudoomiyaha dil gaaray waxa weeye xildhibaanada bartankooda gudaha la galay qoriga la galay miyaa ka hadlaya ilaahay baa inagu dhaariya doorasho xor iyo xalaala waa Saciid Cabdullaahi Dani abwaan buu ahaa ninka xabadda lala dhacayay waxa weeye sanka laga geli waad ogsoonaydeen Axmed Madoobe oo ku xigeen hadda laga dhigay waa ninka sanataradu ay u xiran yihiin 14 sano doorasho moon qabanin ma ninkaas ilaahay baa inagu dhaariya doorasho isagana qaban kara oo waxa weeye doorasho qof iyo cod riday qabanaya ma waxaan ka wada doorasho xor iyo xalaal raadin kara ma ninkii shalayto waxa weeye isku caana shubay keligii intuu qol isku soo xidhay meeshan qof kale kama hadli karo aniga baa ka hadli kara mucaaradna ma joogo mana iman kara lahaa miyaa doorasho federaal iyo ummad Soomaaliyeed ka hadli kara ama mustaqbal ummad Soomaaliyeed ka hadli karo oo waxa weeye mustaqbal baan ummad Soomaaliyeed u raadin dhihi kara maya ma dhihi karaan waxa meesha marka ka socda waa shimbrayo heesa weeye waxa weeye waa madadalis weeye waa madadalis wax saameeyna haba yaraatee
وهي حسن كوكيري يا نمجرو ورشاها هو تو نينك كليا حسن لجارا جيكرين كرا وانينكا شارو بوينا فرماجوي نمان فرماجان هين او ميشا لجارا جيكرين كرا انت هذا تاغيران كرانينو horta ma jiro nasiibka iyo qaadashaduna waa baab kale taana iyadana iga qabsada si kastoo noqotaba golihii maalintii labaad ayuu galay shirkuna wali waa socdaa ma soo gabagaboobin ma soo dhamaanin wali waa socdaa wixii ka soo kordho halkan baan u fadhinaa insha Allah taala